waxa ay dhalatay sannadii 1958 iyadoo ka dhalatay qoys aad faqri u ahaa. Aabbaheeda iyo hooyadeeda guur kuma aysan dhalin. Nolosha adag ee reerkeeda ka jirta awgeed waxay marba la noolayd hooyadeeda, aabbaheeda iyo ayeeyadeed oo kala nolol ahaa. 6 sano ee ugu horreysay nolosheeda ayeeyadeed ayay la nooleed. wax la'aanta haysata nolosheeda awgeed waxay xiran jirtay jawaanka baradhada dharka ka samaysan, taasoo ay carruurta ku ciyaari jireen. Markay 6 jir noqotay ayay hooyadeedii aaday. Ayeeyadeeda si wacan uma aysan barbaarin oo dhibaato ayay ku qabtay. hooyadeedana way ka sii liidatay. hooyadeeda gabar kale ayay dhashay. nolosha adag ee haysatay awgeed ma aysan u suuragelin inay labadooda wada koriso. sidaa awgeed waxaa loo diray aabbaheeda oo magaalo kale ku noolaa. halkaas ayayna muddo joogtay. guriga aabbaheeda waxa uu ugu darnaa meel kasta. adeerkeeda, ina adeerkeeda, qoyska qof ay saaxiibo ahaayeen ayaa faraxumeyn kula kici jiray markii ay soo gaartay 9 sano. markii ay xamili weyday faraxumeynta loo geysanaya ayay ka carartay guriga aabbaheeda iyadoo hooyadeeda ku laabatay. isla waqtigaas iyadoo 14 jir ayay dhashay ilmo yar, balse waa uu geeriyooday. dugsi sare ayay dhiganaysay. waxbarashadu ay ku fiicneed ayaa dhaxal siisay inay jaamacadda gobolkeedii deeq ka hesho. xilliga ay ku jirto waxbarashada dugsiga sare ayay noqotay boqorada quruxda ee gobolkeeda. sidoo kale idaacad magaaladeedii ku taallay ayay shaqo ka heshay, halkaas oo ay shaqooyinkeedii warbaahinta ka bilowday. muddo kadib 24 jirkeedii ayuu kufsi kula kacay wiil ay ilma adeero ahaayeen, markaas oo ay ku jirtay waxbarashadeedii sare ayna ahayd gabar aad u firfircoon. sannadii 1983 ayay u soo wareegtay magaalada Chicago, waxayna ka shaqo bilowday muuqaalbaahiyaha WLS-TV iyadoo bilowday barnaamijka I Am Chicago. halgan badan oo ay soo gashay kadib waxa ay samaysay barnaamij caan noqday oo la magac baxay Oprah Winfrey Show oo ay bilowday sannadii 1986, kaasoo ay ku wareysan jirtay dad aad u badan oo magac ku leh dunida. barnaamijkeedaas 40 milyan ku dhowaad ayaa daawaday. waxa ay soo afjartay sannadii 2011. hanti badan oo ay ka samaysay warbaahinta ayaa ka dhigtay inay noqoto madow Ameerikaankii ugu hodansanaa qarnigii 20aad. waxay ahayd gabadhii ugu horreysay ee madow ay noqoto bilyaneerad guud ahaan dunida. sidoo kale waxaa loo doortay qofkii ugu sarreeyay ee madow ee deeq-bixiya ee gudaha Mareykanka. muddo badan ayay ahayd gabadha madowga ee ugu taajirsan dunida. 2007 ayay noqotay gabadhii ugu saameynta badan dunida, iyadoo sannado badan ka soo muuqatay listiga dumarka ugu awoodda badan dunida. sannadihii u dhexeeyey 2004 iyo 2006 waxay ahayd bilyaneerada keliya ee madow ee listiga Forbes ku jiray. waxaa lagu tilmaamaa boqoradii warbaahinta. waa shakhsi aad saameyn ugu leh gudaha dalkeeda. waxay 400 oo milyan ku qarash garaysay kobcinta waxbarashada carruurta Afrikaanta ah. maanta waa bilyaneerad, hantideeduna waxay kor u dhaafaysaa 2.9 bilyan oo dollar, kana mid ah dumarka ugu hodansan dunida. qofkaas aan ka sheekaynayno waa Oprah Winfrey, shakhsiyad nolol adag ku soo kortay oo nolol bilaa qorshaha ku dhalatay. carruurnimadeedii kufsiyo isxigxiga la kulantay, dhar ahaan u xiran jirtay jawaanka baradhada, mar ku sigatay inay isdisho noloshana isdhaafiso, kuna guuldaraysatay nolosha lamaanaha. maanta waa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu sumcadda badan caalamka. waa tusaalaha nool ay eegi karto haweenay kastoo caqabad nololeed wajahaysa.